بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقور ضمبئ mahadnaq sidina aad noo soo dhaweyseen intiina caawa dhowrka boqol ee oday ee waxgaradka caaqil leh suldaan leh sheekh leh da' leh dumar waaweyn leh aad ku joogteen eed ilaa karashka u taagnaydeenna aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweyn qaran bay ahayd cadowga soomaalida aad tusaysaan iyadoo hadalkeenna iyo buuqeena laga yaabay marka intiinaasi halkaa timaadeen oon qarannimada walaashanaya hadalkaa ku lugeyna cadaawo u ahayd taana waa idinka mahadnaqaynaa tan caawa intii naa soo dhammi saacadda odayaal wada ah oo 9 iyo 8 seexan jiray aad intaa kursi ku fadhideen iyana waa dagaalka ka mid tahay qarannimada lagu dhisaayo ee dalka lagu ilaalinayo ee ku daalantiina wali ku sabraysaana waanu idinka mahadnaqaynaa dhiirigelina way noo tahay kalsoonina way noo noqonaysaa gaariga shidaal lagu shubay annaga lagu soo shaqeeya dadku wada shaqeynaya odayaashii waa ku fadhiya bay tahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya intii halkan caawna laga yidhi farintiina waa qaadanayna intiinaas waxaana farteenna ma yara waxay danaga reebtay mooy waxna ka akhrimayno hadalkii caawa yidhi intii aad tidhaahdeen bay igu dhan tahay caawa waxaa kaloo hadalkiinu u yahay wuxuu ahaa maanta saynu u hadasheen caawa odayaashiinaasi ee danta guud wada ahaa ee haddii aad ku dharkeelasa dangu ka hadasheen ee cid walba wixii qalada aynu iska qaban aad tidhahdeen waa idinka mahadnaqaya odayaashu wixii aniga madaxweyne ahaan laga soo jeeday dulqaado caaqil baashe halkii aad dhigtay baan dhigay waan kula ogolahay suldaan maxamed halku dhigay baan dhigay dulqaad baa laygu leeyay intii naasa oo caawa wadaayey waayeena oo karaamo leh oo suldaan leh oo sheekh leh oo marwane ayaa intaa noo fadhida oon karaamaysay marka intaa in ka yar baa cayda ama ay tuurtuurtay haddaan qaadan wayda intiinaan meel kaga dhacay inta lamidka dowlad ahaana taasaanu qaadanaa arrimihii iyo buuqii aynu baryahan ku jirayna wuu soo ururay waanu soo dhammaanaya wixii aynu isku haynay caawa maanta galabta 2 arrimood oo dhacay baa soo koobay waa marka hore guddidii aynu sugaynay ee doorashooyinka maamuleysay xeerna way samaysteen waana isdoorteen galabta waxaa ilaahay mahadiya waan arkayaa inay nabadda ku imanayso waxaa dul qaatay oo wanaag sameeyey waan isleeyahay waxay dhahan war marka hore aanu qaldanna annaga xaal bixina xisbiyadii mucaaridka ahaa waxay guddoomiye ka dhigteen 3 nin ee ay reebeen 2 ka mid a oo aanu akhriyaya inay tahay haddaanu marka hore meel ka dhacnay weliba kii ugu codka yaraa ee aada loo reebay guddoomiye ka dhigay iyaguna afhayeenkii bay qaateen waxaa ka muuqata halkaa isafgarad iyo in ay xisbiyadii ay ka soo socdeen guddidaasi ay si fiican isu afgarteen waxaa kaloo iyana maanta war galabta soo baxay ah intii gelikii dambe in xisbigii u cid isagu uu isdiiwaan geliyey uu kaba horreeyey kulmiyihii loo tirinayay inuu dabada ka riixayay xisbiyada kulmiyana anuu isugaya ilaa britain diraya saxiixii anna waan geenaya dokumentiga mar haddii guddiga la aasay waddanana waa diyaar waa iyaguna waa diyaareen dokumentiga meel ku laali marto marka waxaa muuqata inay hirgashay wararta xisbiyadu ha tartameen weelku haynoo dhismo waxaanu isla ogolaano caawina halka sheegaya nin walbana u sheegaya mar haddii ay xisbiyadu tartamaan 3 soo baxa diiwaangelintaa imika aynu gelayno doorashooyinku way lacag bateen in badanna waan sheegay dhibaateena waa saa dimuqraadiyaddu waa dhiigbax dhinac walba in aynu ku galo madaxtooyadana muddo gaaban waxay naga hadhaa waa dhaqaalihii 2 doorasho oo inagu fara badan laakiin dee xoolo dirqili waayi maayo meel aynu ka qaadnoba iyo si aynu yeelaba waa inaynu 2 doorasho degdeg isu dhaafina si aynu uga baxno mar walba iyo sanadba doorasho taagan horta 2 doorasho caawa way dhaceen oo waa galabta intii gelikii dambe xalay magaalada Washington dhaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh markii uu hadlay 3 qodob Somaliland gaar buu la hadlay Somaliland wuxuu yidhi marka koowaad Somaliland waxaan u sheegaya inaanaan ogolaan doonina Somaliland madax bannaan oo goonisu taagta bareed waa dhegeysan doontaa wuxuu yidhi xataa ilaa 19 ereygaa war hala israaciya mid laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaal galaynaa wax kastoo soo dhaweynaya Somaliland inay xor noqoto goonisu taagto
waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kala go xadkii ingiriiska iyo talyaaniguna inay qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexii noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baayac mushtara ama dowladdu siinayaan in aniga la isoo mariyo waanu saxiixayaa waan siinaya si ay isaga noolaadaan waa dhegeysan doontaan qodobka koowaad ereyga somaliland ogolaan maayo xorriyaddeeda madax banaanideeda iyo la noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada somaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax banaanideeda ee ahaa xorriyaddii ay ka qaadatay ingiriiska 26 juun oo afrika oo dhan ay kala siman tahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday somaliland soomaaliyadii talyaaniga juulaay 1960kii labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen somaliland shacabkoodu hadba madaxdii joogtaan ay wakiil ka ahayd cidna labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kumana riixi karaan oo aan ahayn go-aanka somaliland sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo inaga weynaya inayla joogtay bale qaranka somaliland magaalada burcaan caawa joogo oo intiina aad ka wada markhaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go-aansaday inuu ka baxo midowgii uu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qarannimada gaar isula taago iyadoo la isu dhanyahay taana xasan sheekh iyo xamarni jooga iyo mid islanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahayn hadalkaa aad tidhi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay 30 sano inuu kala maqnayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhaahdo anu ku leenahay laba dowladoodoo jaar oo walaalo soomaaliya ma ahaana hadday ku deeqayso weeye adiga ta odhanaysa qodobka uu yidhi xadadkii talyaaniga iyo ingiriisku sameeyaan ina kala sooci maayaan oo ina kala goyn maayo wax weyn naga dhexeeya waxaan ka leenahay ama aynu ka leenahay horta xadkii isticmaalku waa kay ku dhisan tahay afrika 54 dowladood Soomaaliland waa 55 nin diida iyo natiijada waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka xasan sheekh iyo madaxweynayaasha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay axdigeedu inay afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalkii waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga afrika ee leh afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tegey isla markaana aad leedahay Soomaaliya iyo Somaliland ku kala raaci maayaan xadkii talyaaniga ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axdiga midowga afrika dee iskaga bax afrika midowga afrika وهذا مد قارس ما يسوي حتى أروح مدوري حدودي صافي أوكي لكن سوماليلاند ما أورنكرتي كما قال سبكر وشرعي أفريقيا نموي الله مدو أفريقيا كمدي هاي كويدين بينه حرية ديال واحد كل سنة التاج أفريقيا تكدوليات أفريقيين كشرية كونترات بالله ندي دينا نستي مدة قلب كصدحات وحيري وحنقولها إن إسكت عيشه wixii horumarin la siiyo inay hadii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxeexayaa haday horumar doonayaan waanu saxeexayaa ma doonayna inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalo siyaasadda diblomaasiyadda xorriyadeed waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka afrikaanka ah ee afrika soo urursay ee lagu soo waxaan la yaabanahay inaad faanto tiraahdo Soomaaliland xornimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha iyo macaamiisha
waanu ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo ha iska ceesheen waxaan ka leeyahay horta soomaalidu hore u mahmahday waxay tiri soomaalidu waxay tidhaahdaa gob xurmaa deeqda gunna gasiin iyo gowsqabatin baa deeqa waxay la tahay xasan sheekh somaliland ma yaqaano markuu leeyahay iska noolaadeen labadaa ere wuxuu quurayaa ka dambe somaliland soomaali way istaqaanaa anigu adigaa shaksiyan kuu sheegaya somaliland soo baro somaliland waa gob xurmaa deeqda ee calooshu ma deqday waxay gelayaan iyo gowsa gudi haddii xornimo iyo is-ixtiraam iyo qarannimo lagaa waayana nin waliba wuxuu yahay inbuu noqon waxaan ku soo koobayaa habeenkii 26 juun markii hargeysa xafladii la joogay arrintaa waan ka hadlay wuuna soo hambalyeeyey waxaa loo dareemayey inuu si maaragtay nin afka wanaagsan waa kan aad arko macaaneeye saaxiibo badan uu ku leeyahay somaliland qaar bay baamishtar yihiin baamishtarkiisa ka socda iskuulu leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaan baraysanay anigu habeenkaa waxaan idhi waar libaaxa ka qaylaya ka soociya iyo ka aamusan badaran waxa soo baxday xasan sheekh wuxuu la aamusaa inuu shalay ka sheegay Virginia isagoo la hadlaya qurba joogii Soomaaliya waxaan ku talinayaa laba dawladood oo 30 sano kala madax banaan xoreen اعتراف إلهي ونو اعتراف أنا واسع اعترافنا بني آدم يقولوا وحنا نقبلنا يربا صدوا سنة نكلم مغنى لبي يصدوا سنة صدوا سنة شب إيه عراد إيه إلا الدنيا بتشوفني صدوا سنة نكلم حرة هديك دقيق ويدي أنا وقرر ما يوحى كدقيق يكون احترامية لكن الشعب كالصومالي وحلاه أنا وحنا عندنا الصومال لندهاي ولا ليال كلا قوسنا ينقوم ما أنو laba dawladood walaalaynu nahay hadaynu wax tarayno hadaynu iska asharayno laakiin waxa xasan ka soo yeeray malaha shacbiga Soomaaliya lama socdaan isleeyahay wixii wax garaday intaas waa iga war iyo wixii aan ka oran lahaa oo isleeyahay burco oo lagu aasay Soomaaliland iyo intii odayaasha u badnaa wixii ka dooraana way joogaan fagara ka weyn ka oran lahaa ma jiro aad iyo aad baa mahadsantihiin